tahay daawadayaal waxaan ku suganahay maanta oo markaas inaga soo salaamaya magaalada Qabri Dahar waxaan la kulmay saaxiibka Kamaaludiin Axmed Gille ninka aad aragtaan xaqiiqdii Kamaaludiin waa dadka markaas sheekooyinka iyo markaas majaajulayaasha ah ee ku sugan magaalada Qabri Dahar waxaan la filayaa sheekooyinka iyo markaas waxyaabaha kala duwan oo nala wadaagi doono inaan markaas aad uga wada heli doontaan Kamaaludiin sheekooyin badan ayaan dhaxmari doonaa daawadayaal nala socda waxaan filayaa inaad markaas aad ka wada heli doontaan sheekooyinkaas iskugu jira ahli jiray kuwa ahli jiray xiisa badan kuwa lahjadaha Soomaalida iyo dadka waxyaabaha kala qabsada sidoo kale sheekooyinka ku saabsan dhanka ahli jiray mirqaanka Suusama ayaad markaas aad nala wadaagi doontaan ugu horreyn horta Kamaaludiin ku soo dhaweynaya soo dhawo waan dhawahay walaalnimaanow waxa weeye marka hore magacii waa soo sheegtay waxa weeye barnaamijkan adigu martaqaadeen aad baad ugu mahadsan tahay waa sidoo kale waa caadi adaa ii yeeray marka waxa weeye waxaan ka wada hadli doonaa ama waxyaabo badan kaaga taban doonaa waxyaabo badan oo ay kamid yihiin laajadaha iyo waxyaabaha ugu yaabka badan iyo afgaran waaga dadka Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku wada hadla dhaxmara marka miyaan ka horeeyaa way inta horta guud gelin Kamaaludiin Kamaaludiin Axmed Gille baa la yiraahdaa way balajada iyo sheekooyinka inta guud gelin adiga waxyaabaha gaarka ku ah ku qabsada dhanka sheekooyinka iyo bulshada dhexdeeda dad ku guda jirtay waxyaabaha aad ugu qosasho maxaa kamid ah waxyaabahan aad ugu qoslo waxaa kamid ah markaan arko dad magaranaysaa isfahmi la oo Soomaali ah oo Soomaali hadana oo Soomaali ku hadlaya oo nin walba eraygiisa si u yaqaano waxa kale aan aad ugu qoslaa markii aan la kulmo dad magaranaysaa wadankeena waxa aad ugu badan ama siiba deegaankeena dadka aadka u qayla magaranaysaa marqaaminta ahli marqaaminta ah wadanka aad ugu badan markaan arko camaladooda iyo dhaqankoodana aad buu magaranaysaa aan ugu qoslaa qaarkood waan la yaabaa marka waxyaabahaas ay u qosolka badan intaan magaranaysaa aan joogay dunida waxaan la kulmay way sheeko ama maqaal waxay u soo gaadhay Kamaaludiin mar uu ku sugnaa caasimada dalka ee magaalada Addis Ababa Addis Ababa dad badan oo Soomaali ayaa ku wada kulma oo markaas kuwa deegaankeena ka yimaaday kuwa waxa la jiray koonfurta iyo waqooyiga ka yimaaday halkaas waxa la jiray Soomaaliya koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga ka wada yimaada halkaas ku kulma oo lahjado kala duwan ku hadlaya Kamaaludiin oo deegaankiisa joogana uu dhax socda sheekooyinka halkaas aad kala kulantay in yar inaan naga yartaabtan jeclaan lahaa aniga daawadayaasha nio waxa weeye arrinkii uu qosolka badnaa ama waxyaabahan la kulmay waxa kamid ahaa dadkan laajadaha kala duwan ku hadla dadkan reer xamarka reer waqooyiga reer bariga reer galbeedka dadkan noocaas kale leh oo qaarkoodaas dhihi eriyo badan bay ku kala duwan yihiin dhaqanka xitaa way ku kala duwan yihiin hadalka xitaa way ku kala duwan yihiin ficilkay ku kala duwan yihiin qaarkood marka waxa dhacday waxyaabay ugu yaabka badnaa laba nin oo haddii Ilaahay ku sabagel yahay anagoo meel hotel ka soo baxnay waa laba nin oo rabteen is dirto aniga nin kale yaan dabcan kala qaban aad isku cadaysan haye laba nin ka kala socdaan marka laba nin labadu waa reer xamar way marka mid baa wuxuu ku leeyahay haye koonfurta Soomaaliya laga yimid Soomaaliya koonfurta laga yimid mid baa wuxuu ku leeyahay abo waxa waay waa la ii sheegay aniga dhibaatada waxa falka igeysanaysan waa ka saayano ciyaalka xaafada ay maleene ilaa macbuudkiisa ku dhaartay wax ku galay arkayno wax ku galay arkay ku leeyahay magarad ma galay marka adigu waad maqashaad yaabanta aad kala qabataan maleen marka isku bootal isku maarin marka nimanku isku boodal aad kala qabataan maleen aniga nin kale taana diyaar baad tihiin soo nimankan waa iska sheekada un bay isku wallo kala halka way marka wuxuu ku leeyahay abo waxa weeyaan ciyaalka xaafada ay maleynayno ilaah macbuudkiisa ku dhaartay wax ku galaya arkayno ya sida fiici aan kula dirarano sida fiici marka kii kala soo booday oo yiri sida fiici aan kula dirarano abo waxa way hadda waa mashquulsana marka ka balshanay mid uu taagay mid uu fadhiya kii ka balshanay bay abo hadda waa artaa mashquulsanahay waxa way lambarkii qorano meesha rabta aan ku imanaa cawada araadka dhacday ugu iman waa ku imanaa ilaah macbuudkiisa ku dhaartay ya waxaan salaa hooyada iyo lambarba waxa soo dhigi doonaa moogta malaha lambarkii qoro isoo wax isla tigana meel meesha rabtaan kugu imanaya taagan yahay waa kii kale aye marka waxaan salaa wuxuu dhigi doonaa war lambar iyo waxaas waxa ka garan maaye iyaga garbax maanta ayuu dhigi doonaa kii kale aye
qorno ay dhalaateeno taagan ya lambaradii baa la kala qortay annaguna waxaan leeyahay nimanka intaas isku jabin ad kala gaadhaan haye waa waxyaabihii ma garanaysaa aan la kulmay wali waa berihii ugu horeysay wey ma garanaysaa dadkan Soomaaliyeed luqadda ku hadlayaan arkay ahayd marka maxay jirtay oo kale sheekadii ugu qosolka badneed aan arkay waxay ahayd ereygan sirqo maxaad taqaanaa lumano sirqo ruuxaasi waa sirqo markii lagu dhaho waa sheekadii ugu qosolka badneed aan arkay ahayd ha sirqo dadkeena qaar waxay u yaqaanaan qofka markuu gaboobo ama canta tabo sirqo baa loo yaqaanaa xaggan saan filay koonfur iyo midug waxay tahay ma sheegi karo xaggan waxa loo yaqaanaa gabadha barakatada ya sirqo loo yaqaanaa xaggeena laftiga dad aan garin ma jiro aad ku fasashay adigu barakatada gabadha suuqa gashay ma garanaysaa farax ka baxday ba yaa la yiraahdaa sirqo dadkeena galbeedka iyo bariga qaarkood waxay u yaqaanaan gabadh islaanta markay canta tabto isku dardarmato yaa la yiraahdaa sirqo qoladan waxay u taqaanaa gabadha markay magaalada gashay ee faraha ka baxday la gabadhaas way waalatay marka laba nin ba hotel wada degan waa adsawa mid marka iyadii oo sirqa dhimatay mid ba iyadii oo sirqa dhimatay telefoon baa usoo dhacay kolba war waxay ahayd iyadii oo sirqa Allahu naxariista Allah samri iimaan Allah naga siiyo aldii kulligeen buu dhaha ninkan waa yaaban yahay hadda iyadii sirqa ahayd muxuu sheegayaa isleeyahay ya hadda iyadii sirqa ahayd muxuu ka sheegayaa taagay marka maalinta dambe ku yiri maalinta la soo aasay iyo u yaaray oo ku yiri aniga qofka Allah uu dhintay shalay iyo aha shiri warnay islaan ayada oo sirqa ya ahayd soo ku yiri aniga soo qof islaamati hadday sirqa ahayd soo waalidka ma ahayn siyaha Soomaaliya dhiman maxaad ka sheegay kan kale wuxuu taagayaa boor in cid kasta ogeedina sirqa ahayd buu kuleeyahay ya cid kasta ogeedina sirqa ahayd buu taagan yahay oo goorma sirqoodii ku dhaho ma dhaweyn 5 sano u dambeysay sirqa ahayd soo ayda ma ahayn siyaa ayadii aakhir waxay kala helaan leedahay iska daa sirqadeedii iyo waxa doon waalidka way ahayd Allah u naxariisto iska dheh ummadana ha gaarsiin oo shaqooyinkii ugu la yaabka badnaa la kulmo waxay xagga ma garanaysaa ilaashadaha kala duwan mar waxa dhacday habeen ma saq dhaxan waxa ka soo arbaxnay mid raaxmar oo siyar garanaynay aan iska soo arbaxnay wuxuu wataa dadkan raaxmarka waad iska garanaysaa cuntadooda cuntada ay cunaan waxay u badan tahay sambuus iyo mashmash iyo chipsi iyo bataati waxyaabaha yararka macaan bay iska wataan ukun iyo dooro iyo wax noocaas marka haduu ilaahay ku suuq galiyahay ama saq dhaxaw meelaha 6 saac habeenimo ayuu wuxuu ka soo arbaxay soo bac ukun iyo chipsi iyo waxyaabo ku wataa ama saq dhaxaa waan salaano abo warano kamal awada intee u socoteeno san ku alxamdulillah niyo ma reerkii waxba u wada cunto ma abo iska bulaanayno kaliya adegan san ku marka dhalinyar iyo waxba kula joogo oo wada abo kaliya la watano waxaan cunta ama toddobaadkan baad rabtaa inaad ku ma abo waxa waa filim ku fiirsanayno waa gartay waxa way kamal waa ku fahmaya dhalinyarada ma ogtahay hoo cuno meeshii weyn ii dhibayo ruuxan iga daa tan maxay ahayd baan dhaa tan waxa way abo dooro waayno ukun waay war ukuntan maxay haysatii ma garanayso la soo shiili jiray abo saana ku dubantayno to dubka meesha iga fiiqay ii dhibay oo ku fahmaya kana ku darno mashmash aldahno mashmash aldawa wax yaro sawaayadahan camal oo mashmash aldahno ku dar oo ku fahmaya dhalinyarada ma ogtahay abo waxyaabaha ma garanaysaa dhanka laajadaha marka nin raaxmar iyo nin reebaqooya hadana sheekadooda u galno mid raaxmar xanuunsan baa waxa ka soo arbaxay dadkan reebaqooyana waa iska taqaanaan filayaa hadal yar adag iyo waxay leeyihiin dadka kalena hadal iska yar dabacsan oo hadal naxariis u badan bay iska leeyihiin moogta abo noo hadal marka mid xanuunsan baa waxa ka soo arbaxay nin xanuunsan raaxmar iyo mid reebaqooya yaa iska soo arbaxo dhakhtar baraan dhan tilmaan abo waxa waay waa xanuunsanay ma ogtahay marka abo waxa waay dhakhtarka u baahanayno tilmaano saa inta uga darkay buu arma dhakhtar baad u baahneed si abo maxaa ka xanaajino si arnin jilacsan la cadaabe sakada inta ka laabtid sakada ku soo jeeda takasi jeeda ku laabo deesaw dhaqaa abo maxaa ka xanaaji abo kan waa wax la ku weydaano abo waa xanuunsanay arniyo ma dhakhtar baa u baahneed misaal baa u baahanta kana si taagan marka
marka hadduu ilaah kuu sabagel yahay waa xagga laajadaha haddaan weli laajadaha kusii soconno shakeer oo xagga soomaalida magaranaysaa aad magaranaysaa uga dhacday dadka Soomaaliyeed inta badan aan filaya inay wada hayaan sheekada xalwo inay haysaan filaya oo sheekooyinka aan la yaabo aan ku qoslaa nin reeqooyo oo gabadhiisa xalwo la yiraahdo nin raaxamara oo Hargeysa iska nool baa yiri abo waxa waay maanta xalwo u baahnay moogta waa nin meherad haysta abo maanta waxa waay xalwo u baahnay kana gabadhiisa oo qabaal dhaha xalwo oo maga xalwo u baahnay moogta marka waxa waay abo xalwo ma ka heli karaan sudahay no arma xalwo xagee isku taqaan xalwo ma ay sheegay xalwo anu waan jeclahay xalwo anu waan jeclahay oo xageed ku jeclaan jirtay taagay anaga su'aal bal taagay sudahay xamar weyn ku dhuuqo jiray xamar weyn ku dhuuqo jiray marka sheekooyinkaas aad baa loo hayaa taas ayada marka haddaan magaranaysaa in yaroo kooban oo reeqooyiga iyo reexamarka aan ayadana wax ka soo qaato kulay aad baan u badiyay xaggan magaranaysaa laajadaha nin reexamara laba nin reexamara waxay isku qabsadeen Hargeysa waa caasimadda labaad ee Soomaaliya iyo ma aha caasimadda labaad ee Soomaaliya marka mid reeqooyiga weydiinayaan abo waxa waay labada reexamarka waa reeqooyi oo la yimaadeen sheekada ku reeqooyi oo la yimaadeen ayagoo sheekadii isku haysta ma aha iyo way tahay marka waxa waay abo waxa waay ninkan tarfatoora waayno tarfatoora waay Hargeysa waxa waay Soomaha abo caasimadda labaad ee Soomaaliya abo Soomaha si no arwaxayde waa kireeqooy abo runta u sheegno tarfatoora waay caasimadda labaad ee Soomaaliya abo Hargeysa ma aho si no jow bow hayay arwaa bareere utay arwaa bareere war maxaa Hargeysa Soomaaliya ka dhigay butaaya kan Hargeysa maxaa Soomaaliya caasimadda koowaad ee Soomaaliland ba kana taagay no jow bow hayay arwaa bareere utay waynu soo baxay dadka qaar baa macnaha ya qadiyada saas iska sii weynta moogta marka